waqooyiga Soomaaliya ayaa ولمن كان يعتقد أن هذا الدين هو ديننا نحن العرب فقط ربما سيتفاجأ عند علمه أن من قاد عملية الدفاع عن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ضد القوات الصليبية البرتغالية في ذلك الزمان كان عبارة عن تحالف. tani waa diin aynu wada leenahay ma aha mid ay carabta kaliya ay leedahay Soomaalidu waxay si toos ah uga qayb qaateen difaacitaanka diinta Islaamka taasoo aanay carab fara badan qaban waxyaabaha ay qabteen tusaale ahaan boqortooyadii Ajuuraan oo ka dhisnayd koonfurta Soomaaliya ayaa ahayd tii difaacday markii uu Boortaqiisku soo weeraray halka uu ku aasan yahay Nabiga sallallahu alayhi wasallam sidoo kale boqortooyada adal oo ka dhisan waqooyiga Soomaaliya ama gobolka awdal dhulka loo yaqaano imika ayaa ah kuwii difaacay isbahaysigii xilligaasi lagaga soo horjeeday boqortooyadii Boortaqiiska aan idhaahday oo xilligaasi isku dayday inay weerarto halkii uu ku aasnaa Nabiga sallallahu alayhi wasallam boqortooyooyin isu tagay oo ay ka mid ahayd muslimiintii Hindiya iyo Soomaalidu oo ku noolaa xilligaasi geeska Afrika sida imika ugu nool yihiin oo aanay ka jirin xilligan Soomaalida imika loo yaqaan Soomaaliya ee ay ka jirtay boqortooyooyin yar oo ay ka mid yihiin boqortooyadii Ajuuraanka iyo saldanadii adal oo ku taalay waqooyiga Soomaaliya ayaa ka mid ahaa waxyaabaha difaacay haddaba taariikhdan oo ah taariikhaha ugu gunta weyn ee ummadda muslimka ee ku nool geeska Afrika ay ku geysteen waxtarka ummadaha Islaamka ayaa ah mid ka muuqata taariikhda Islaamka marka la baaro taasoo ah weeraradii ugu cuslaayay ummadda madowga ee ku nool geeska Afrika ay ku baajiyeen weeraradii ugu cuslaayay ee dalkii Yurubiyaanka ahaa ee xilliga yimi geeska Afrika ay ku birtilmaameeyeen qabriga Nabiga sallallahu alayhi wasallam haddaba waxa kamid ahaa taariikhaha gunta dheer leh sida lagu soo bandhigay barnaamij lagu faaqidayo waxqabadka Soomaalidu ay ku leedahay diinta Islaamka boqorkiisna Soomaaliyeed ee qabsaday Itoobiya inteeda badan ee Axmed Gurey taariikhdan ayaa ah taariikh aad u gundheer markana waxaan idin dhaafayaa in aad daawataan iyadoo carabi ah هذا الدين هو ديننا نحن العرب فقط ربما سيتفاجأ عند علمه أن من قاد عملية الدفاع عن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ضد القوات الصليبية البرتغالية في ذلك الزمان كان عبارة عن تحالف إسلامي تكون من عدد من القوى الإسلامية الخلافة العثمانية وهي قائدة ذلك التحالف سلطنة أجوران وهي سلطنة صومالية مسلمة كانت أراضيها تقع في جنوب دولة الصومال الحالية سلطنة العدل وهي تمثل شمال الصومال الحالية وجيبوتي وإريتريا وجزء من أثيوبيا الحالية الحبشة وسلطنة جوجرات الهندية مهمتها محاربة الغزاة الصليبيين البرتغاليين في شبه القارة الهندية كل هذه القوى اجتمعت بهدف حماية الإسلام وهذه هي روعة هذا الدين جميع المسلمين دافعوا عن هذا الدين العظيم لا فرق بين هندي وصومالي وإريتري وإثيوبي وتركي وعربي إلا بالتقوى والعمل الصالح وحتى أبطال عمان الذين جاهدوا ضد الصليبيين والصفويين كان منهم أيضا أبطال عظام من قومية البلوش المجاهدة وأبطال من أصول أفريقية كلهم تعاونوا مع إخوتهم العرب العمانيين لنصرة الإسلام والمسلمين وما ضعف المسلمون في الآونة الأخيرة إلا لانتشار مرض العنصرية والقبلية بين بعض المسلمين ويكفيك أن تعلم أن الصومال التي يعتقد البعض جهلا أنها دولة على هامش التاريخ كان لها دور كبير في الدفاع عن المسلمين وقبر محمد صلى الله عليه وسلم فسلطان مملكة العدل المشاركة في ذلك التحالف الإسلامي الكبير وهو القائد الصومالي البطل أحمد بن إبراهيم الغازي احفظ هذا الاسم جيدا هذا البطل الصومالي كان القائد الإسلامي الذي انتصر على تحالف صليبي مكون من البرتغاليين وأباطرة الحبشة الصليبيين وهو من قتل بيديه قائد الغزاة الصليبيين البرتغالي كريستوفر ديغاما ابن السفاح الصليبي فاسكو ديغاما الذي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية الحقيقة التي لا نعلمها أن لمسلمي الصومال وحتى مسلمي إريتريا وإثيوبيا
تاريخ مجيد في الدفاع عن الإسلام والمسلمين، ولم يكونوا أبدا على هامش هذه الأمة كما يعتقد البعض. الدفاع عن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ضد القوات الصليبية البرتغالية في ذلك الزمان كان عبارة عن تحالف. tani waa diin aynu wada leenahay, ma aha mid ay carabta keliya ay leedahay. Soomaalidu waxay si toos ah uga qayb qaateen difaacitaanka diinta islaamka, taasoo aanay carab fara badan qaban waxyaabaha ay qabteen. tusaale ahaan boqortooyadii ajuuraan oo ka dhisnayd koonfurta Soomaaliya ayaa ahayd tii difaacday markii uu Boortaqiisku soo weeraray halka uu ku aasan yahay Nabigu sallallahu alayhi wasallam. sidoo kale boqortooyada adal oo ka dhisan waqooyiga Soomaaliya ama gobolka awdal dhulka loo yaqaano imika ayaa ah kuwii difaacay isbahaysigii xilligaasi lagaga soo horjeeday boqortooyadii Boortaqiiska aan idhaahday oo xilligaasi isku dayday inay weerarto halkii uu ku aasnaa Nabigu sallallahu alayhi wasallam. boqortooyooyin isu tagay oo ay ka mid ahayd muslimiintii Hindiya iyo Soomaalidu oo ku noolaa xilligaasi geeska Afrika sida imika ugu nool yihiin oo aanay ka jirin xilligan Soomaalida imika loo yaqaan Soomaaliya ee ay ka jirtay boqortooyooyin yar oo ay ka mid yihiin boqortooyadii Ajuuraanka iyo saldanadii Adal oo ku taalay waqooyiga Soomaaliya ayaa ka mid ahaa waxyaabaha difaacay. haddaba taariikhdan oo ah taariikhaha ugu gunta weyn ee ummadda muslimka ee ku nool geeska Afrika ay ku geysteen waxtarka ummadaha islaamka ayaa ah mid ka muuqata taariikhda islaamka marka la baaro, taasoo ah weeraradii ugu cuslaayay ummadda madowga ee ku nool geeska Afrika ay ku baajiyeen weeraradii ugu cuslaayay ee dalkii Yurubiyaanka ahaa ee xilligaa yimi geeska Afrika ay ku birtilmaamaysanayeen qabriga Nabiga sallallahu alayhi wasallam. haddaba waxa ka mid ahaa taariikhaha gunta dheer leh sida lagu soo bandhigay barnaamij lagu faaqidayo waxqabadka Soomaalidu ay ku leedahay diinta islaamka boqorkiisna Soomaaliyeed ee qabsaday Itoobiya inteeda badan ee Axmed Gurey. taariikhdan ayaa ah taariikh aad u gundheer, markana waxaan idin dhaafayaa in aad daawataan